maanta waxaan rabnaa inaan cashirkeena uga hadalno functions of sclera oo ah shaqooyinka ay qabato sclerada. wax yar oo kooban cashiro kale waxaan uga soo hadalnay sclerada waxay tahay. marka waxaas dhan waxaa keenaysaa isla channelka. maanta waxaan ka hadlaynaa bes shaqooyinka ay qabato sclerada. ugu horeyn sclerada waxay tahay iyo qaab dhismeedkeeda iyo wax dhammaan waxaad ka heli doontaa cashirada kale. shaqada ugu horeysa qabato scleradu waa ilaalin, protection, inay ilaaliso isha. sclerada waxa ay ilaalisaa xubnaha ku jira isha gudaheeda, intraocular contents. macnaha gudahan isha waxaan ku jira oo dhan ayay ayada ilaalinaysaa inteeda badan. waa qaab dhismeedkan kor ku wareegsan waa iyada oo ka ilaalinaysa waxyaalo dibadda uga imaada. marka ishu saan tahay sclerada adagtahay dartiis waxyaalo walba oo dibadda uga imaada iyadaa ka difaacaysa. marka waa very rigid, aaday u adag tahay. taasaa keenaysa oo qaab dhismeed kasta u sahlaya inay isha protection u noqoto oo ay ilaaliso. qodobka labaad oo ay qabato sclerada waxaa ka mid ah waxa ay qaabaysaa isha. sclerada waxa ay sameysaa qaab dhismeedka ay ishu leedahay. qaab dhismeedka ay ishu leedahay isha inay qaab dhismeed noocan lahaato oo saan sida banooni oo kale xoogaa u ekaato waxaa qayb qaata sclerada. laakiin waxay la kaashanaysaa cadaadiska ku jira isha gudihiisa ee loo yaqaano intraocular pressure. micnaheeda waxaan ka wadaa hadda banooni markuu uusan aari ku jirin waxaa laga yaabaa saas oo kale inuu iska yahay. laakiin markay aarida ku jirto qaab dhismeedka uu yeelanayo saas u wada wareegsan waxaa suubinayo maqaarka kore oo kaasoo hadda u dhigan sclerada iyo cadaadiska hawada ku jiro oo gudihiisa lagu shubo mar walba. hawo bay ka adag tahay wuu kasii adkaana qaab dhismeed adagoo sar kale oo saasoo kale u suubsanaa. marka mid waxaa sababaya maqaarka kore sclerada u taagan oo caawinaad ka helayo qaab dhismeedka macnaha cadaadiska gudaha mar walba uga jira oo isbiirsada. marka taasaa banoonigana u suubiso wareegaas uu leeyahay. ishana sidoo kale waxaa u suubiso sclerada qaab dhismeedkaas uu leeyahay. shaqooyin kale oo ugu weyn waxaa waaye inay suubiso ayada waxaa ku dhegan attach ku ah murqaha isha. sclera iyadoo ay caawinayso qaab dhismeedkeeda adag waxaa ku dhegan oo soo gala murqaha isha u qaabilsan dhaqdhaqaaqa movements. isha inay dhinaca fiirisay inay dhinaca fiirisay inay dhinaca muruq mar walba dhinaca ay fiirinayso u jiidayo extraocular muscles loo yaqaano ayaa waxay ku wada dhegan yihiin sclerada. hadda sida sawirkan ka muuqato waa kana muruqaan iyo muruqaan iyo muruqaan iyo muruqaan iyo muruqaan iyo muruqaan lixdaas muruqba waxay ku wada dhegan yihiin sclerada. maadaama qaab dhismeed adag ay leedahay ishana mataqaanaa iyo ka ilaalinayso wax banaanka uga imaanayo qaab dhismeedkiisana adag ay suubinayso. sidoo kalena murqahaasaa ku dhegan si dhaqdhaqaaqa isha mar hadba dhinaca ay fiirinayso looga qayb qaato. isha markay saan tahay mid saa kor uga soo dhagaa, mid dhinacan uga dhagaa, mid dhinacan uga soo dhagaa, mid dhinacan uga soo dhagaa, mid ugu soo laabmaa, mid kale saan usoo qabsanaa. macnaha si isha mar walba dhaqdhaqaaqa ay rabto loogu suubiyo extraocular muscles. saddexdaas shaqo ayaa ugu waaweyn waxa ay scleradu qabato functions.